waddankan odayaashii madaxweynayaasha ka ahaa dalka ra'iisul wasaarayaashii kala duwanaa wasiirada intii soo ahayd waxaan la shaqaynaynay oon ku xushmaynaynay kursigooda waxaan doonaynaa marka ma markii uu qabtay nin sacada ra'iisul wasaare noqday ayuu waddanku qalqal galay qalqal ma gelin waddanka wuu hagaagay ninba maalintiisayna sugaysaa waa idinla soo shaqaynay waxaana rabnaa in nalala shaqeeyo hawiye waxaan ka rabnaa ma inaadnaan sheegan magac hawiye annaga nin nagu matalaa oo la dagaalsan dawladda maba jirto nin dawladda la dagaalsan waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed isku xaq dhowrto mas'uuliyadda iyo xilka qof waliba maqaamkiisa iyo meertadiisa marka uu soo gaaro in lagu xaq dhowro lagu ilaaliyo waxa weeye in aan waddankan khalkhal siyaasadeed iyo mid amni midna aan la gelin midowga musharaxiinta oo hadallo badan oo maaragtay waqtiyada soo dhaafay dhacahay wixii aan laaqin ahayn iska dhaafo wixii laaqin ah oo ummadda u qalmo oo dagaal iyo rabshad ku galin laga wada shaqeeyo oo nabad ay ka wada shaqeeyaan si doorasho xasiloon ay u dhacdo nin kasta markuu rabo xukun inuu qabto wuxuu rabaa dad xasiloon oo ganacsanaya oo wanaagsan inuu madax ka noqdo waxaan xaq u leenahay inaan si nabada oo walaalnimo inaan dawladnimada ugu toosino inaan mataqaanaa aan sidii shalay bareen nasafka ka horreeyay aan ula shaqaynaynay inaan isagana aan ula shaqayno kuwii ka sii horreeyay iyo kuwa ka dambayn doonana saasaa loola soo shaqeeyey waana arrin dhaqanka Soomaalinimada iyo dawladnimada jiritaankeeda intaba ku wanaagsan weeye xildhibaano badan waxaa soo maray madaxweynayaal badan baa dhulkaas soo maray oo aan goobjoog u ahaa ra'iisul wasaareyaal badan baa soo maray oo goobjoog u ahaa waxa la mucaaradayo iyo wax lagu orinayo iyo waxa la leeyahay xil lagu haysto iyo waxa la leeyahay golaha waxa loogu dhacay madaxtooyada waliga ma naqaan imriga ma naqaan mara annaan maqan waxaan maqlaayay gabdhaha Soomaaliyeed ka mid ah oo hadda ka hor habeen dhaweyd hadlaayay oo lahaa waxaan ugu daadanaynaa madaxtooyadaan galaynaa madaxtooyada hadday galayaan maxamed farmaajo waa joogi jiray madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed midna waxay ugu galayaan midna waa maxamed xuseen rooble ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda maxamed xuseen rooble waddanku waxaan u malaynayaa waa 4.5 ra'iisul wasaaruhu magaca hawiye ka soo jeedaa beesha hawiye waxaan u soo jeedinaynaa hal la taageero hana la garab istaago haddaan asaga lala shaqayn waxaan uga digaynaa kuwa soo socdana lama shaqayn doono oo aan soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha federaalka maxamed xuseen rooble oo runtii u guntaday inta uu xilka hayay nimanka halkaas kaga muuqdo hal hayay waa niman hawiyaayo hiraaba habar gidira oo sacaba waxay si buuxda u taageersan yihiin waxay gacmaha ku wada haystaan rooti abuukaya oo inta dheer leeg rooti dheer Soomaaliya ku jiray rooti dheer rooti bay gacanta ku wada haystaan maraqa farmaajana waa kula dhuuqaan waxayna taagan yihiin hadalkoodu waa cadiye hawiyaha kalow muddaa la rootiga wadateen wax dhuuqi jidheen oo aad xeeryahaas haddii alla kuu rooyahay bahalka ama farmaajo ku ridataan ama midkaan ku ridataan kula dhuuqayseen annagu maanta inuugu jirtaaye 91 loo noqoha guriga farmaajoa u daadahayna waxaas joojiye aadana joojiye annaga aan difaacaynay taagan yihiin waa farmaajo iyo ra'iisul wasaare bahalkii oo waxay taagan yihiin weliba rootiga iyaga niman maarayn waayey maraqa farmaajo iyo rootiga iyagaba niman maarayn waayey ama difaacan waayey manihi halkaa markii xaaladdu baturnaysa marka waa maamahay jiray oo weliba maamaa xuma maamahayaan hadday dembi tahayna golaha saaxa weydiista abar baa hadda ka hor waxaa laga sheegay reer miyi bay ahayd oo reer miyigu timaha hoose hadday ku baxaan de sakiin waxa ma qaataan waa rifaan aduuf u saara abar baa goor barqadii inta gurigeeda ka baxday oo timaha hoose ku baxeen bay inta laba geed isku lamaanisay
bay waxay bilowday inay aduufaynta usoo qabato ruf siiso ruf markay shadabaashu waa xanuun waa tin laga jarayo kale moogta bay tiraahdaa wiil dhashay baa taaha maqlay wuu soo dabagala geedu dhowsa uga badayo mise hooyo cid kale eersan mayse aadayo uudaba ayada gacanta sula jira oo ayada wax ka rifaysa markaasuu gartay hooyadii ciidiin cidna dhibaatayn baraaya cadowna haysane ee wax ayadu isku samaynaysa tahay hooyo hooyo adaa isdilaye haatan waxaan oga golle waxaan qaylinaya kuwala derbiyada u daadanayna kuwala 8 February kuwala buumahan la baxnay kuwa qoryaha hoos uraya iyo kuwa hadlayo digayo le annaga hawiya ra'iisul wasaaraha waa taageersanaa wuxuu waa wada hawiyo dowladnimada horta ay arsan dowladnimada Soomaaliya wayna wada anfacaysaa ko aan ilaalsan tan labaad waxa idin dheer magaalada Muqdisho la yiraahdo oo aad xoolaha dadweynaha iyo hadii la ku rooyo Soomaaliya inteeda kale waxa lagu qaato iyo qumqumka iyo hadii la ku rooyo deeqaha caalamka dhan ay yimaadaan oo dhisantay Washington ta ayada idinka gooni u leeyahay horta u ilaalsado oo xeeradiinu waa buuxdaaye ha iska qubinino daboolka saarta sidii weyn baan la hadlayaa oo nimcadaas ku xamdiye tan labaad hawiyo mucaarad iyo mu'ayid dhan suraac oo hadiiba waxaan maqalnaa intaa oo weliba saaxiibaday yiraahdaan maalin alla keeno daarood kursiga ma wareejiyo xabad bay rabaan waddanka ay qalalaasa galiyay rabaan farmaajo daarood daba taagan oo maanta leh ku tala xumayso oo kursiga ku dhig ma jirto neeba waxa farmaajo kursiga ha ka foqin leh ku dhig ku hay inta la haya waa idinku hawiya waxa ku qaylinayana waa idinku hawiya deelma adeeraya dhinacun aada bahash dhinac u dareera ama mucaaradka ama muxaafidka habeen hore waxaan idiin sheegay qorqor dayaan yiri guud laawo dayaan yiri haddii aan la ku rooyahay kan muxuu ahaa kii isha saa dhihi jiray Umar Firis dayaan yiri waxaas oo dhan baa waa niman hawiya waa niman kale jir oo joog farmaajo quruxow nimanka qaadaya marka bahasha ilma adeerayaal gar allay leedahay habar gidir sanadkan ra'iisul wasaaraha hadii la yiraahdo farmaajo 10 kroon sii fadhiyo hadday bay isleeyihiin kaasaa sii fadhinaya way ogolyihiin oo sii fadhiyo oo waxay taagan yihiin rootugu macaana bay taagan yihiin marka war farmaajo yaan anaga nala ku eedayn farmaajo yaa anaga nala ku eedayn annagu laba joogno kursi kuma hayno labada maamul oo ka soo jeeday waa kuwa hadda la leeyahay doorashadiiba qadiyaan lagu kala taagan yahay waxa wada waa saddexdaas labadaas maamul dhibka jiran ay sheegayaan dadka laba xaqdiyo anagu runta inaan sheegan jeclaa markaas dhibaatada hadda maamulada hawiye iyo ka raxaweynta iyo waxaas oo dhan waxa yes maanka ka dhigay oo baalashayaasha farmaajo ka dhigay oo dadana cod lahayn ka dhigay oo hadii la ku rooyahay madaxweyne qurux badan oo kataarka saakilid oo haystaan wax kala ma dadku intay wax qabsanayeen intay dadku meelahooda wax dhisanayeen inta goboladu horumarayay inta dekada samaysanayay idinku maxaa qabanaysay maadareeya waa kana galmudug qorqor maanta jooga hadii uu dhaho farmaajo waa khaldan tahay hadduu hal sekin dhaho biil ka jaraya korontada iyo biyaha iyo waxba ka jaraya sababtoo ah asaga biila canshuur ma qaato canshuur male meel canshuur ka qaada male dekad male airport male farmaajo biil ka siiya waa xaafad isagu leeyahay oo uu biilo xaafadda ninka biilayahay haddii uu biyaha ka jaro maxaa soo baxay idinkaada weydiiyey caawa korontada hadduu ka jaro
wuxuu diyaarad ku raac heli mayo staff maya staafkiisa wuxuu sii heli mayo ayagaa dilay hadduu ka jabto wuxuu haysto ayagaa dilay cali guudlaawo fiiri dekad male airport male halkaa xawaadla ku qataaren qaalaxda ku haya caawa haddii uu dhaho farmaajo isha ku qalloociyo ka jar uu dhaha biyaha iyo korontada wax kala ku samaynina haweernina waxbaa ku samaynina biilka iga jara kaliya biilka xaafadda biilka ka jara ya adeega xaafadda ka jara dilyaada askariga la socda dilaya markuu gajoodo askariga la socda baa dilaya sababtoo canshuur ku xisaabtami mayo bahalkii ma uu haysto ila dhaqaalood ma haysto dekad ma haysto elbor ma haysto wuxuu cashuura ma haysto biilkaas ku nool lafta gareen fiiri cabdicasiis wax ma haysto waa ninkaas saboolkaa halkaa jooga dad masaakiinoo beeralayo madaxweyne u yahay magaranaysaa raxan weyn la yidhaahdo halkaasuu fadhiyaa hadda wuxuu fadhiyaa 4 sano waa fadhiyey dekad iska daa warkeeda boor warkeeda shaqadiisa maaha halkaa fadhi baa la yiri haddii uu farmaajo dekad iyo boor waxa u dhiso ama mashaariic u fidiyo gacantiisa ka baxaya gacanta farmaajo uu ka baxaya hatta hadduu amni u dhiso ciidamo u dhiso gacanta farmaajo ka baxaya marka muxuu farmaajo halkaa fadhi anaa ku biilaya aniga biilkii weydii codka meeshaan ku raado siyaasi dantaan kaan leeyahay okay dadku wadanaysanaya ninka raga wadanaysanaya sababtoo ah dad waxa haystana ma awal ma joogin meesha ganacsatada dad waxa haysta maaha dekadii airport ma imaan cid cashuur laga qaada ma leh ma garanaysaa halkaa muxuu ku yiri marka halkaaga dul fadhi wiilka raxan weyn tuugsanaya haddii aan la ku royay kan looda muxuu ahaa dhaqanayay ka beerta falanaya madaxweyne u tahay jooxa oran ciidankaasaan kusoo diray adiga amnigaaga sugaya gurigaa joog biilkaaga qaado meesha aan ku dirana saxiixo qabo dan baa urur sheegtay maaha ninku inuu xun yahay maaha inuu liita maaha dan baa urur sheegtay wax kale u sameeya male okay biilkayga qaadanaya awliyaa keenay horta awliyaa keenay farmaajo qurux baa keenay meeshan yaa igu fariisiyay dhaqaale aan leeyahay miyaan watay maya gacanta inta dheer leekay yaa meesha keenay farmaajo qurux baa keenay yaa dhaqaale igu bixiyay farmaajo qurux baa igu bixiyay yaa xildhibaan iga farmaajo qurux baa bixiyay yaa Ethiopia ii keeno meesha xoog igu fariisiyay farmaajo qurux baa keenay okay ina farmaajo laga fariis ninka la yiraahdo sidoo kale muxuu ahaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa guudlaawo sidoo kale wixii ka dhacay arkaysi nima ka dhigay madaxweyne ama hal buu ku leeyahay kama abaal dhici karo adduun sabad leeyahay fiiri ninka la yiraahdo qorqor xoog baa u saar nin baa meesha fariistay amnigiisi iyo cunadiisi intaba qaba kama hor imaan karo marka hawiye ganacsato waa leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya ugu tira badan maanta anu xageena ku tabaya dhaqaalaha ugu tira badan iyo kambaniyasha ugu tira badan xageena ku tabaya maanta oo maanta dhaqaaluhu Muqdisho maanta awoodda Soomaaliya taala xageena ku tabaya dhaqaalaha ugu badan markii faanka majaaltaanka laga soo tago dhaqaalaha ugu badan hawiye gacan isku jira ama mashaariic ha u jiro ama qandaraasyo ka siyaa ugu jiro ama magaranaysa ama lacagtii caalamka lagu soo Soomaaliya magaceeda lagu qaatay halka ha gasho dhaqaalaha ugu badan hawiye maanta gacan isku jira okay maxaa idin diiday war ma reer la yiraahdo reer mudug oo waliba reer la yiraahdo Umar Maxamuud miya hawiye ka dhaqaala badan su'aal baa weydiinaya hawiye dhan Umar Maxamuud ka dhaqaala badan maya way ka maskax badan yihiin kama dhaqaala badna way ka maskax badan yihiin waa reerka maanta ka dhisanaya waa reerka dekada ka dhisanaya garacad waa reerka ayagu isu tashaday waa reerka dekadoodii maanta gabagabada marayso waa dekadii farmaajo iyo khayre hatta ku darsan waayeen xariga macna dhagax dhig ay ku darsan waayeen dekadii maanta waa gabagabo waxa daawanayseen ayadoo hadii aan ku roon yahay shoobki waa weynaayo mawjadaha celinaya lagu shubay inta kala la dhisay la arkaysi hawiye oo dhan kalma dhisan waay galmudug koonfur galbeed iyo bahalkiiba inta kaaga dhow xardheelayo hobyo waxaas oo dhan ilaa cadale kalma dhisan weydi tan muqdisho maahe oo maamulka banaadir la yiraahdo aad inta la qaylinaysaan baa maanta ka haysaan dekad ayadana xukuumadii markaa timaadaa quudato dhuunta ku shubata xukuumadii markaa jidha oo Soomaaliya xukuumad u ah
baa dhuunta ku qoysata oo idima qaybsanto oo hawiye kaliya gooni uma yeelan karo. cabdinuur jimcaale axmed nuur jimcaale oo hormuud leh baa dhisi kara 10 dekadood kaligii, balse meeday garashadii iyo maankii ee hawiye dalkooda ku horumarin lahaayeen. maanta hobyoo dekadi taallo ma kula tahay inuu qoorqoor ahaan lahaa yesman, mise wuxuu ka shaqayn lahaa, wuxuu noqon lahaa afka hawiye dad hawiye mi ku hadla. waxaan hubaa inuu ahaan lahaa qoorqoor oo dekad haysta oo canshuur heli kara oo dhaqaale heli kara oo haddii alla kuu ron yahay sida dani iyo ninka madoobo kale u soconaya, wuxuu ahaan lahaa maanta nin wax la weydiiyo ahaan lahaa, mid wax loo yeeriya ma ahaadee. cali guudlaawo oo dekad haystaay reerkiisa wax ka maqli lahaa. ninka la yidhaahdo cabdicaiis lafta gareen oo dekad haystaay reerkiisa wax ka maqli lahaa. halkaa marka waxaa isdhigay idinkaa isdhigay ee waxaad samaysaan sameeya in aad samaysaan haddii alla kuu roya dhaqaalaadima hayso hanti waa haysaan ee samaysta wixii aad ku bahalkaysan lahaydono mashaaric ku samaysan lahaydono dekada ku samaysan lahaydono aad ka xoroobi lahaydeen. sababtoo biri madaxweynaha yimaada kan kaliya ha fiirin, biri madaxweynaha yimaada qoorqoorna yesman buu ahaanayaa, cali guudlaawo yesman buu ahaanayaa, lafta gareen sidoo kale yesman buu ahaanaya. maxaa ku kalifaya? waxaa ku kalifaya nin baahani nasab ma ah, nin baahani nasab ma ah. haddaan maaha nin kasoo horjeedo meh nin haddii la koraya baalka, laakiin xaqiiqda waaqiciga jeclana sheegaanu waxaa nimankan yesman ka dhigaya idin sheegaya iyo meesha laydinka haysto. waa nin afka wax lagu guray, ninka maanta yiri meel seexo oo xaafadaada iyo islaanta iyo carruurtaan kugu biilaya adigan ku biilaya, dee hadalkuma soo celin karo, hadalkuma soo celin karo. sababtoo dee anaa waxaan baashaan yihahdo muxuu ahaa baashaan baashi kuulada loola jeeda kuulado xeebta fadhin jirdhay oo aan shaqaysan karin. madaxweynaha yimaada marka sida farmaajo ugu adeeganayo bu asna ugu adeeganaya. sababtoo ah biilka xamar baa yaalla, xamarna madaxweynaha xukuma baa biilka siinaya, biilkiina qaata dhaqaaqa halkaa halkaasaa samey u leey kama soo qaad marka maanta haddaad hobyanaad haddaa xaladheer muxuu ahaa hobyo dekada ka dhisan lahaydeen, haddii alla kuu roo yahay muxuu ahaa meelaha balaawo iyo baalkiina mid ka dhisan lahaydeen, hirshabeelle dekad lahaan lahayd, miyaa hawiye limited noqdeen? miyaa siyaasad loo yeerin lahaa? maya. laakiin halka dhibaato ma aha ninka la yidhaahdo qoorqoor inuu farmaajo jecel yahay, maaha jacayl gooniya ummadda waxan uma hayo. ninka la yidhaahdo guudlaawo jacayl uma hayo farmaajo. dani iyo waxa waa isugu mid, waa rag caadi oo saaxiiba waa isugu mid, laakiin waxaa la isdheer yahay ninna waa free oo wuxuu leeyahay buu cunaa. dani islaamahaas masaakiinta meesha la yidhaahdo puntland ku nool ee sixir bararku halaageeyey irsaaqadoodu liqaa oo ku cayilo tunkunta ku leekaada, oo haddii alla ku raya hadduu shir qabanayo, hadduu barraqda, hadduu doolaha ku ruxdaa halkaa fadhiyaa, ma garanaysaa? farmaajo warbax buu leeyahy. sababtoo ah farmaajona xamar buu xoogaa islaama masaakinta xamar joogo asna kana fagtaa kana kuwaanu fagtaa, ma garanaysaa? axmed sidoo kale halkaas wuxuu fagtaa islaamaha iyo carruurtaas wuxuu fagtaa haddii alla ku ron yahay meesha la bahashi jooga. marka farmaajo axmedoobe iyo deni waa siman yihiin, nina ma muquulin karo. nin kasta wuxuu leeyahay war tag aniga tayda qaado, aniga tayda qaada socota. sababtoo waa rag isleeg, waa isleegi jeebku waa isleegyihiin, laakiin nin baahan nasab maaha. dhibka jiraa wuxuu yahay raggaa kale waa rag baahan wey. afka wax loo gelin nima meel saartay ma buu leeyahay aamusa fariisa halkaa dayuusin yahay dayuuda kala jirin budhahaya hadday farmaajo maxaa waxaas waa khalad. fariistuu leeyahay meesha sabal iyo sabal ku dhaala markaasay aamusayaan ila suuxi adiga biil ka jarayaan. marka waxaan leeyahay hawiyow muhiimku waxaa weeye waxba ha dhisan inaad hartaan dekada hadda inaad dhisataan oo aad hobyo dekada ka dhisataan aniga dan iguma jidhabe. sababtoo aniga dan waxay igu jidhaa inaan taa garacad aad iigu timaadid aan ku cashuurta kaa qaato halkaa waxaa kasoo daldalatid anaa weliba laami kuu dhisayo, laami ilaa hobyo iyo baalkii anaa kuu dhisayo halkaa badeecadu kaaga soo gasho. marka dekada isa kuma welihiba, laakiin nabadda muqdisho keliya iyo xasiloonida iyo haddaan munaafiq maahay markaasaa ku leeyahay runtaan idiin sheegayaanu munaafiq maahay.
nabadda iyo xasiloonida muqdisho keliya muqdishoad maanta ka haysaan wax nool maanta muqdisho ka haystaan dhuunta lagu qoysto ciddii rabta ha ku qoysto dhuunte ciddii rabta ha ku qoysatee meel dhuunta lagu qoysan karo muqdisho ka haysaan muqdishada balmaadeeda ka xasiliyey oo waxaa isla gdamaya habarta xaalku wuxuu marayaa waa habartii ayadoo bisqinta rifanaysay idinkaa isdilaya istaagay habar gidir baa xagga habar gidir maanta waa muxaafid ra-iisul wasaaraha iyaga rootiga iyaga balowdan leeyahay ilaa maxay leeyihin nimanka la yihahdo muxuu afgaal kursiga banayn maaha bee habar gidir ku haya kursiga rootiga kaga jira hawada kusi dheeran maya waxaan leeyahay awiyow guuleysta balse nabadiina iyo xasiloonida ilaalsada farmaajo wuu tegayaa sidaan horey u sheegay laakiin wuxuu tegayaa markuu 6 bilood aqal ugu yaraan markaan idhaahdo uu ku tuurto 6 bilood hadda halka sana ku tuuran sidii kuwii ka horreeyay xasan iyo markaasuu tegayaa anoo mucaarad ku ah baa ku qanacsan inuu 6 ama 1 sano intaa mid noqo sababtoo ah wacal hadda shay maaha waxaan rabaa haddiiba uu tagayo sifahii uu ku tagay ninka la yidhahdo xasan sheekh maxamuud inuu ku tagaan rabaa sifihii sheekh shariif ku tagay inuu ku tagaan rabaa oo aan la ibro dheeraysan dii marka qabiil ahaan u hadlayo oo aan la ibro dheeraysan baan rabaa adintaa waa rabtaa qof kastoo dee qabiil baan wada baalkeeyey qof kastoo annaga ah oo soomaali ahana reerkiisu inay xoogaa burasida ugu rabaa waxaan leeyahay war wax tabcada oo dekada dhista oo waxaad xor ku noqotaan sameeya inta ka horeysase ra-iisul wasaaraha adaa heshaan ku caliyo quba haddii lagu roy baalkii idinkaas ku dilinina farmaajo tegi maya farmaajo idinkuna hasku laynina aad baa idin salaaya waxaan leeyahay habeen wanaagsan